السلام عليكم حوادله meel kastoo joogtaan dhammaantiin waadi salaamay muxuu ahaa rag iyo dumar meel kastoo joogtaan dhammaantiin assalaamu calaykum waa cabdullaahi goodax barre oo idin salaamayo waxaan codkan u duubay in aan ku caddeeyo arrin social media dhex wareegayso oo aan filayo inaad iiga baahan tihiin inaan caddayn ku tusaaleeyey oon cabir ku siiyey war xawaadle intaa faraha badan oo intaa Itoobiya joogo oo xawaadlaha Itoobiya joogo waxa la yiraahdaa wuxuu ka badan yahay ka joogo muxuu ahaa Soomaaliya maxay u dulman yihiin maxaa dulunkaas keenay waxaan tusaaleeyey in dulmigaas loogu soo dugaalay laba arrin xawaadlaha Itoobiya joogo dhaqan lahayn dhaqan matalo oo magaalooyin joogo oo matalo oo mataqaanaa muuqdo malaha farabadidaas badan ay qabaan haddana dhaqan malaha muxuu ahaa dhaqan ahaan waxay soo fiiriyaan beledweyne dhinaca kale dad wax bartay oo tuulooyinkooda iskool male magaalooyinka Itoobiya intay aadaan yani dad xoola dhaqata ayay yihiin marka waxaan iri waxa aad samaynaysaan waa wanaagsan tahay laakiin waxa loo baahan yahay waxa xalkeedu ma aha jaga la raadiye ma aha xalkeedu waxa waaye meesha dhibku ka jira in wax laga xalliyo xawaadle meel kastoo joogo oo aan hiiraan ahayn waa ku dulman yahay maxaa yeelay dhaqan la'aan meel walba la joogaan ka jooga luuq iyo gado wuxuu u dulman yahay dhaqan male dhaqankii wuxuu ku xiran yahay xamar yani rabaa meesha la yiraahdo beledweyne ka jooga Kenya wuxuu ku xiran yahay halkaas marka waxaa taas ay keenaysaa marka xawaadluhu fidaba in qabiilo kale ay sheegtaan in qabiilo kale ay ku dhaqan noqdaan meeshaasay aadaysaa marka waa laga maarmaan haddiiba xawaadlaha Soomaaliya jooga ay rabaan inay u gurmadaan inay dadkaas ku kaalmeeyaan sidii ay u yeelan lahaayeen hoggaan dhaqan waxaa la yiraahdaa qofka malaay hasiinana malaayga sida loo dabto bar dadkan sida ay dhaqan u yeelahayn iskugu tiirsanaa lahayn inaan ku kaalmayno ayaa nala gudboon taladaasaan u soo jeediyey waxaan u soo jeediyey inay ugaas duubtaan maadaama xawaadla dhaqan ahaan lagu yaqaan in ugaas lahadaan inay ugaas duubtaan xawaadlaha Itoobiya waa dal kale ogow waxaan ka hadlayno waa dal kale waa dal Itoobiya la yiraahdo ugaas inay duubtaan xawaadlaha meeshaas jooga qabiil kastoo jufo kastoo xawaadlaha degan inay nabadoon samaystaan taas inaan ku kaalmayno markaas nabadoonnadaas iyo ugaaskaas meeshaas jiro waxay la macaamilayaan dowladahaas Itoobiya jiro hadday federaal yihiin iyo hadday yihiin muxuu ahaa dowladda dhexe waxay la macaamilayaan xildhibaano yeelanayaan waxay deegaanadooday mataqaanaa u loo bigaraynayaan xildhibaanadii ay yeeshaan xamar loogama shaqayn karo waxaan irnimayahu noqda waxaan ka ballan qaaday $20,000 oo aniga lacagtayda oo aan qof laga soo aruurin oo anigu aan baxsho inaan ku kaalmaynayo duubista ugaaskaas iyo duubabka dhaqanada waxaan kaloo ballan qaaday ninka hadda meesha tegey ee kelinka loo geeyey inaan keeno marka xawaadle uu shiraayo oo meel walba iskaga imaanayo oo duubanayo ugaaskooda iyo nabadoonnadooda inaan keeno ninkaas si loo arko xawaadle inuusan cayaar ahayn ballantaasna waan qaaday dadkan waxay uga caddahay inay lacag qaadaan ama guryo joogjoogaan meelaha taagtaagnaadaan waxaasna xal ma ah waa igu soo noqdeen mar labaad waxay dhaheen waxaan rabnaa lacagti war lacagta waxay raadaan shuruudahaasaan ku bixinayaa haddaad lacagtaas rabtaan aniga waxaan awadaan uma arka inay xal keenayso waxaan xal u arka waa kaas haddaan lilaahi nahay oon si fiican u shaqaynayn aan meeshaas aan ka abaarin haddaad laakiin idigu tan xal u aragtaan falyatafadal aniga qaaraha wixii ugu soo toosaa halaygu yimaado laakiin lacagta $20,000 oon sheegay waxaan ku bixinayaa marka dhaqan la duubaayo xawaadlaha Itoobiya ee dhaqan duubanayo oo loo abuuraayo hoggaan sheekadii waxay u bedeleen sidaan maqlaayo ugaaska hala ridow yiri ugaaska kan waxaas waa ciyaal suuqnimo wax fiican maaha wax xawaadle ku aha karana maaha war ikhtiyaareedna maaha waxaan ka codsanayaa inay meeshaas apology ka bixiyaan
haddii kale dad ciyaal suuqa oo lacag aruurinayo meeshii la aadayna la aqoon ayay u egyihiin taas waa taas waxay qoraalka ku sheegeen inaan lacagta ballan qaaday aan ka noqday lacagta shuruuddaasaan aan markii horeba ugu sheegay waana tala qurxanay ila ahayd welina waa ila tahay waana hubaa xawaadlo badan inay la tahay tala fiican in dadkaas magaga aragtay leh inay yeeshaan hoggaan inay yeeshaan hoggaankaasaan aniga yacni biniya aan u quuray in $20,000 oo aniga aan iga go'in maanta inaan siiyo laakiin $20,000 oo guri jigjiga loogu ijaarto maanta oo dhan horey gadaal loogu socdo $20,000 aniga igama go'do waa saasaan ugu sheegay sidii hadday marka war xumaynayeen xawaadle luqunta isku gelinaayeen iyagay u taallaa laakiin waxaan rabaa in xawaadle ogaadaan arrintu inay noocaas tahay waxaana rabaa xawaadle hadda inaad ka tala bixisaan waxaan 4 qof oo ordayso waxay u ordayaan la aqoonin waxa laga hadlaa waa siyaasad qaaraan iyo heblow iyo maaha waa siyaasad hoggaanka hadda meesha joogo oo cusub waa isku fiicanna waan lala macaamil karaa laakiin hadiyad afka lagu gelinaa ma jirto waa in dhaqankeenna aan hoos ka soo dhisnaa waa inaan shaqo adag qabannaa meeshaan ma aha Ethiopia 4.5 Soomaaliya oo kale oo jagooyin la qaybinayo qabiilo naga yar waa wada ogtiin ayaa waxaa leh waddanka nuskiis mas-uul ka wada ah sababto waxaa waaye dadkaas deegaano tuulooyin iskoolaad leh wax leh ayay degan yihiin dad aqoon laha u soo baxo kafac u soo baxay annaga haba soo daadee hadda inaan bilowno wey marka dadkayaan la marin habaabinin dadkayaan la wareerinin dariiqaas xawaadlow ha la maro haddii aad dhaqaalo ku bixinaysaan dhaqaalo meeshaas ku bixiya ha ku bixinina dhaqaalo meelo guryo la gelgelaa iyo jigjigaa la joogaa iyo xaggaa la joogaa iyo waxaas waxa weeye wax oo maadaa yacni waa waqti dhumis waa dhaqaalo dhumis waa marin habaabin waxaa qurxan in xawaadlahaas haddaan u gurmanayna hal mar aan u gurmano oon dhaqan u samayno macno ma samaynayso in yacni xawaadlaha Ethiopia joogo iyo ka gada joogo iyo ka jooga afmadow iyo ka jooga muxuu ahaa gaarisa inay tala iyo ra'yi ka sugaan ugaas xasan oo jooga beledweyne iyo nabadoonnada jooga beledweyne macquul ma aha ilaahana badiyey waa inaan kala barbaarnaa oon kala soconnaa oo aan isku soo hilownaa laakiin aan dana kala qabsannaa aniga saasaa ila qurxan haddii aan siyaasadda aad rabtaan inaad ku hoggaamiyana waa taas haddaad si kale aad ogtihiin xawaadlow isqabta talana isku raaca